السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back with another video. kusoo dhow muuqaal kale oo cusub halkaan naga daawanaysa ma bartiin baahinta wararka fadlan dad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar sidoo kale channelkana share gare saad u gaadhaan asxaabtaada ama more friends kale degdeg fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani oo magaciisa saxda loo yaqaan Maxamed ayaa lagu soo sheegayaa in lagu qabtay magaaladaasi Berbera kadib markii uu socdaalka yimi xagga iyo Garowe isagoo dhawaanahanba ku sugnaa ariga iyo dhanka magaaladaasi Muqdisho xamar soo ku qabtay show cadeeyayna inuu isagu xagga joogayo muddo 2 bilood ah kadib markii uu Hargeysa ka tagay fanaanka caanka ah Qamar Suugaani ayaa la soo sheegay in hadda Berbera lagu qabtay iyadoo jirdilna waliba loo geystay ciidamada magaaladaasi Berberana ay xabsiga u taxaabeen arrintan ayaan la garanay cid alaaliye cid ka dambaysa fadlan dabadaawadayaal waxaan la soo socodsiin doonaa wixii kale ee ka soo kordha balse imika warkaan hayna ayaa ah in la xidhay fanaankaas Qamar Suugaani. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada maxadka barashada quraanka kariimka hab online ah adigoo lagu bari doono adigoo jooga gurigaaga ama se goobtaada shaqo ama se goobtaada waxbarasho waqtiyada fursada aad leedahay. haddaba waxyaabo lagu bari doono waxaa kamid ah 1 barashada quraanka kariimka hab online ah haddii aad hore u soo dhigatay quraanka iyadoo halkaaga lagaga sii qaadi doono. sidoo kale 2 barashada higaada iyadoo higaada lagu dhigi doono muddo aad u kooban oo ka badnayn bil iyo badh ama 2 biloodba waa sida aan u xadidnay. 3 barashada luqadda aad ku dhiganayso haddii aad joogto dhinaca iyo dibadaha luqadda lagu fahansiin lahaa waana luqadda Ingiriiska iyadoo aad dhiganayso sidoo kale luqadda Carabiga iyadoo lagu fahansiin doono. haddaba maxadkan ayaa diyaar idin ah markasta oo heegan idin ah fadlan kala soo xiriir numbarada shaashada idinka muuqda waa WhatsApp sidoo kale Facebook hamoogaan maxad Daarul Xikma daawadayaal. haddaba ballanteenu waa maxad Daarul Xikma ood kala soo xiriiri doontaan numbarada shaashada ku yaala qiimo ku raali geliya macquul ah iyo waliba waqti aad doonto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.